Madaxweynaha Dowladda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kulan la qaatay xogayaha Qaramada Midoobay Antonio Guterres isagoo kala hadlay gargaarka degdega ah ee abaaraha iyo mashaariicda horumarineed ee laga fulinayo Soomaaliya. Madaxweynaha ayaa soo bandhigay sida ay uga go'an tahay dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab iyo xasiloonida Soomaaliya. Waxa uuna la wadaagay xogayaha Qaramada Midoobay halganka isku dhafka ah ee ciidamada iyo shacabka Soomaaliyeed ay ka wadaan gudaha Soomaaliya. Xogayaha Qaramada Midoobay Antonio Guterres ayaa soo dhaweeyay aragtida madaxweynaha Dowladda Federaalka Soomaaliya ee la xiriirtay dib u qaabeynta mashaariicda horumarineed ay ka fuliyaan dalka. Waxa uuna tilmaamay in talooyinka uu soo jeediyay madaxweynaha ay ku saleynayaan qorshahooda, sidoo kalena ay dardar gelinayaan doorka beesha caalamka ee gurmadka abaaraha. Antonio Guterres ayaa ku bogaadiyay shacabka iyo dowladda Soomaaliya sida ay uga go'an tahay horumarinta hanaanka dhaqaalaha, deyn cafinta, dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha iyo xal u helidda duruufaha soo laabtay. Dhanka kale, madaxweynaha Dowladda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kulan daceed kula yeeshay magaalada New York hogaamiyaha golaha sare ee dalka Suudaan Cabdifitaax Al-Burhaan. Madaxweynaha ayaa la wadaagay dhigiisa dalka Suudaan dadaalada Dowladda Federaalka Soomaaliya ee ku aadan xasilinta iyo horumarinta dalka, gaar ahaan halganka isku dhafka ah ciidamada iyo shacabka Soomaaliyeed ay ka wadaan gudaha Soomaaliya. Madaxweynaha ayaa uga mahadceliyay shacabka iyo dowladda Suudaan garab istaagga joogtada ay u muujiyaan shacabka Soomaaliyeed oo ay wadaagaan xiriir soo jireen ah oo ku dhisan iskaashi iyo walaalnimo. Maxamed Ciise Koona, M24 TV, Muqdisho.